السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتحانين لما بحي مشروع للدقال كنور كقيبتيسي كوي لبعتنات قصور دو channel كولا in yar kadib waxaan maqlay dabiil xooggan oo qolkii wareegaysa iyo ninkii oo cabaadaya oo aad u qaylinaya intaan isxajin kari waayay ayaa albaabka gudaha u galay anoo cabsoonaya maanta qaybteena 21aad waxaa ka bilaabmaysaa waxaan arkay ninkii oo kor loo qaaday oo cunaha la hayo waxayana ma arkayo isaga ayaa gacanta igu sharaxay bax dabiisha ayaa intii qolkii ku wareegtay ayaanu arkaya ay ka baxday daaqadii William dhulka ayuu ku dhacay cabbaar ayuu nasanayay oo neefta iska gurayay indhuhuna way casaadeen markii dambe wuxuu igu qayliyay maxaad ii dilaysay waan ku naxay oo waxaan ku yidhi maxaan galabsaday oo aan dhibay wuxuu igu yidhi anna shuruudihii mid baan ka tegay adna waxaabad akhriday wuxuu ka gubtay kadib wuxuu igu yidhi miyaad ishirqooshay oo maxaad akhriday waan dafiray inaan wax akhriyay laakiin waxaan ka qariyay in aan aayatul kursi akhristay aayadaas ayaa gubtay jinkii maalinta kadib madeen ilaa aan akhristo waxaanan ka dareemay deganaansho iyo xasilooni dheeraad ah aayatul kursi waxay noqotay hubka aan kula dagaalamo cadowgayga iyo sharka qarsoon Sir William wuxuu igu yidhi iga tag oo habeen dambe isku keenkeen waayahay intaan ku yidhi ayaan qolkayga tagay habeenkii baqdin cabsin iyo khayraad ayaan ku gaadhay habeenka qaybtiisa dambe daaha dhaqaaqa waxaan moodayay jinkii aayatul kursi markaan xasuustay aan akhriyay ayaan nafisay oo seexday Sir William ayaa habeenkii dambe kulan casho iigu yeedhay isagoo daneynaya inuu igala sheekaysto qandaraasyada ay wadaan iyo mustaqbalka dalkan wuxuu bilaabay sida adduunyada saliidda qayrin ay ugu noqotay wax lagu tiirsan yahay la'aanteedna dhaqaaluhu wuu burburayaa maadaama ay sidaasi muhiim u noqotay waxaa la isla gartay in la qorsheeyo isticmaalkeeda qorshuhu waa in bariga dhaxal la isticmaalo 80 sano oo ka bilaabmaysa 1940 ilaa 2020 halka 80 sano ee ku xiga la dejiyay in la soo saaro kheyraadka saliidda ee ku kaydsan geeska Afrika oo ay ugu badan tahay ku duugan dhulka Soomaalida gaar ahaan Somaliland waxa la gaaray waqtigii la maali lahaa naaska Irmaan ee Soomaalida mashaariicdan hormoodka u nahay ayaa daaran in dadka loo bisleeyo sida ay u aqbali lahaayeen in aanu u bedelno qaabka dadyowga Carbeed loo qaabeeyay sida dalalka Carabta waa in loo qaybiyaa kuweytiyo badan oo mid kasta gaarkeeda aan u baqamaalno qorshayaasha intooda badan waa la fuliyay ka shaqaysiintooda ayaa noo dhiman markaad aragto Jubbaland Puntland Hirshabelle Galmudug Ximin iyo Xeeb oo mid kasta ku dhawaaqday madax banaani goortaas ayuu qorshayagu noqonayaa mid miro dhal ah oo aanu guul weyn ka gaarno haddase waxaan u soconnaa baaritaan aasaar hore ah waxaan ku raad joognaa mulkigii Nabi Suleymaan calayhi salaam oo la soo goray dhulka Soomaalida baydhabo waanu ka weynay raad hadda Muqdisho ayaa baaritaan ka socdaan wali sacadeyn ma hayno marka adiga waxaan ku diraynaa qaradho ee labaraad ka soo baad mid laba doox oo kulmi ayaad goobaysaa haddaad heshay kaag eeg xabaal kuwii dadkii hore ah oo 9 mitir oo dharar leeg waxaan ku yidhi meesha dhiitan ku jirtay mamaalkaas ayaa laga baadhayay wuxuu iigu jawaabay indhahaaga dabool wixii aan ku dirana doon hana arkin wax aadan idinu haysan warkan uu ii sheegayo wuxuu igu qasbay inaan daraaseeyo boqortooyada Nabi Suleymaan calayhi salaam ee cajabta badanayd Suleymaan dunida oo dhan ayuu ka taliyay wuxuu maamuli jiray jinka iyo shayaadiinta calayhi salaam dabiisha ayaa wahayd gaadiid jinka nooca cafaariidda ayaa u dhisi jiray qasriyo waaweyn iyo sare dhaadheer waxaa kale oo ay badda gunteeda uga soo saari jireen macdanta qaaliga ah ee lu'lu'a iyo marjaanka wuxuu ahaa boqor hodan ah oo dahab badan haysta awoodda Nabi Suleymaan calayhi salaam Rabbi ayaa siiyay waxaanu ku ducaystay in aan cid ka dambaysa la siin awooddaas waxaa igu adkaatay inaan ogaado mulkiga Suleymaan waxay uga jeedaan
ma macdanta xaddaafka ahayd mise maamulkii jinka iyo shayaadiinta mise tasarufkii alla siiyey mise intaas isku qoofalan ay raadinayaan. waa mowduuc culus oo u baahan xog badan iyo lafagur baaxadiisa leh. markaan baadhitaankii koobnaa sameeyey kolkiiba waxaan la kulmay aragtiyo isdiidan. qolo ayaa leh waxay raadinayaan fargalkii nebi Suleymaan oo lagu maamuli jiray jinka iyo shayaadiinta madaxa adag. qaar kale ayaa leh waa dahabkii xaddhaafka ahaa iyo qaar qaba inuu jiray buug lagu maamuli jiray boqortooyadaas. kuwa ugu fog ayaa qaba inuu sixir ku maamuli jiray oo ay iyaguna raadinayaan inay sixirkaa bartaan. arrintaa qur-aanka ayaa nebi Suleymaan calayhi salaam ka beri yeelay. kuwa dadka sixirka barayaana waa jinka. intaa cilmibaadhista ku fooganaa ayaan gaadhay waqtigii aan u dhoofi lahaa qaradho. garoowe ayaa la rabaa markaan tago inaan gaadhi yar kiraysto oo aan gaadho qaradho. waxa la baadhayaa waa godad iyo xabaalo qadiimi ah. jaantuus yar ayaan sitaa iyo saacad sheegaysa dhagaxa meesha yaalla nooca uu yahay iyo GPS ku siinaya jihooyinka dhigaha iyo loolka la beegsanayo. markaan halkii tagnay ayaanu helnay dhagax marka la sawiro ay ka dhex muuqanayso tawxiidka. dhinaca kalena waxaa kaga xardhanaa Allahu Akbar. waxaan go'aansanay in aanan u bandhigin Sir William. markaan ku noqonnay waanu ka qarinay fajicisadii aanu la kulannay. waxaanan ku afgobaadsanay in dhigaha iyo loolku ay naga qaldameen. Sir William ayaa doonay inuu la hadlo qareenkayga. markii hore waan sii dareensanaa oo hoosta ayaan kasii akhrisanayay aayatul kursi iyo bisinka oo aan qabsaday. uu awoodi waayey inuu akhriyo qareenkayga. wuxuu igu yidhi sidan aad iminka u shaqayso waad qoomamayn isma lurin. waxaan ugu jawaabay shaqaaloosaadku mihi ee aynu sixtiraano. wuu iga tegay isagoo cadhaysan oo leh my you are a mole. kelmadda hore uma maqalay. markaan qolkayga tegay ayaan baadhay mole counter spy oo u taagan cidda ku dhex jirta ee lagugu dhex darsaday si lagu basaaso. waxaan u gartay nin cadha madax martay waanan iska ilaaway waxna kama soo qaadin. toddobaadka xigay waxaa laygu soo casuumay shirka dhacayay New York oo laygu soo casuumay inaan uga qayb qaato khabiir ahaan. maanta mashruuca la dagaalanka nuurka halkaas ayuu ku joogayaa. la soco qaybta 22. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.